bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhawaada SWS show waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Sayid Axmed Shariif Xasan. SWS show waa show ku bixi doona luqadda Soomaaliga iyo lahjada kale ee Maaymaayga oo isbuuc walba aan ugu talagalnay maalinka Sabtida ah inaan ummadda Soomaaliyeed aan la socodsiino. barnaamijkeena ayaa maanta waxaan ku soo qaadanaynaa isbuucina soo dhaafay waxyaabihii ka dhacay daafaha dunida ee ku saabsanaa ama quseeyay ummadda Soomaaliyeed. maalinkii Isniinta ahayd ayaa waxaa magaaladani Lewiston gobolka Maine ka dhacay geeri aad iyo aad u naxdin badnayd. geeridaas oo ku timid gabar Soomaaliyeed oo magaceeda la yiraahdo Saliima Nuux. Saliima ayaa waqti galab ah 3:00 iyadoo shaqo u sii socota waxaa ku dhacay gaari truck ah ama pickup oo uu watay nin hurdayay. booliska ayaa weli aan baaritaankii dhameynin waxa ay sheegeen in ninkaasi hadda la ogyahay kaliya markuu gaariga waday uu lulmooday ama uu hurday sida ayna sabab ku noqotay gaariga gabadha Saliima ay wadatay inuu ku dhaco oo Saliima halkaasi ay ku geeriyooto. buuxii aynu soo dhaafnay ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaare cusub kadib markii dowladii hore uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa Professor Saacid ay kalsoonida kala laabteen baarlamaanka Soomaaliyeed. Soomaalida ayaa dhammaanba dunida meelaha ay kaga nool yihiin waxa ay isweydiinayaan sababta ra'iisul wasaaraha loo casilay ama kalsoonida looga laabtay isagoo shaqeynayay kaliya waqti aan sida u fogeyn oo 12 bilood kaliya. Soomaalida ayaa waxa ay garan laayihiin waqti walba markii sanad uu dhamaado waxa ay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha isugu dhacaan kadibna la go'aansado ra'iisul wasaaraha in shaqada laga diro. madaxweynaha ayaa waxa uu ra'iisul wasaare u soo magacaabay Cabdiweli Sheekh Axmed. Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa waxa uu yahay qof aan weli siyaasadda Soomaaliyeed horey aan uga soo muuqan balse hadda dadka ay garanayn waxa uu qaban doono iyo sida uu uga duwanaan doono Professor Saacid. maraynu la dhaxmarnay makarafoonka bulshaweynta Soomaaliyeed ku nool magaalada Lewiston gobolka Maine ayaa waxa aan wax ka weydiinay sida ay la tahay ama ay u arkaan ra'iisul wasaarahan cusub uu soo magacaabay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladii hore tagtay. magacaygu waa Suleymaan Maxamed Xuseen aad baan ugu faraxsanahay magacaabista Prime Ministerka cusub ee Cabdiweli Sheekh Maxamed. waxay la tahay dhamaan Sheekh Axmed waxay la tahay uma baahna ma taageersan tahay iyo ma diidan tahay ujeedadu ma aha muhiimadu waa wax qabad. Soomaalidu waxay u baahan tahay wax qabad uma baahna shakhsi uma baahna qabiil uma baahna tafaraaruq waxay u baahan tahay wax qabad. Prime Ministerkan waxaan ka codsanaynaa inuu fiiriyo dhibaatada dadka haysta iyo dalka. marka sidaa daraadeed macna weyn ma dhalinayso inuu la yiraahdo qofkani aqoon buu leeyahay qofkani waa PhD oo wata muhiimadu waa wadanimo iyo dadnimo iyo inuu alla ka cabsado ilaahayna oo la garab galay xilka loo magacaabay. Salaaman su'aasha labaad aan ku weydiinaa waxay tahay ra'iisul wasaarahan cusub ee la magacaabay ma aha nin horaan siyaasadda Soomaaliyeed ugu maartay looga arki jiray marka ma kula tahay in xilka loo magacaabay uu ka soo bixi doono? bismillah way ila tahay muhiim ma aha in siyaasadda hore ugu tirsanaa ama inuu ku cusub yahay muhiimadu waxa waaye inuu aqoon xirfad u leeyahay lana tashado dadka ugu horeeyay siyaasadda. tan kale ninkan waa nin soo shaqeeyay ururo badan oo caalami ah waxay la tahay muhiimadu waa inuu dulqaad sameeyaa dadku isku soo dhaweeyaa midda kale wax waliba mudnaanta koowaad oo siyaasadda ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ay ugu bixi lahaayeen. Salawaan waa mahadsantahay. Ismaaciil waxaa halkan la taagan Ismaaciil oo kamid ah asagana bulshaweynta Soomaaliyeed ku dhaqan magaalada Lewiston. Ismaaciil sideed u aragtaa ra'iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay iyo ra'iisul wasaarihii hore shaqada laga diray? bismillaahir rahmaanir rahiim waa mahadsantihiin bahda TV-ga. ra'iisul wasaarihii hore waxaan aaminsanahay in uu ka soo bixi waayay xilkii loo doortay kan cusubna kulli insha Allah de asna xilkiisu baynu eegaynaa oo de wixii mustaqbalka noqon doono waynu arki doonaa. laakiin anigu waxaan aaminsanahay kan cusub inuu wax soo siyaadin doono insha Allah isbedelna inay noqon doonto Soomaaliya ay nabad ku noqon doonto. waa mahadsantihiin. Ismaaciil haddii aan su'aal kale ku weydiiyo maxaad u malaynaysaa ra'iisul wasaarihii hore shaqada ka tagay iyo kan maxay u kala duwan yihiin? wallahi different wuxuu noqonayaa kulli kii hore oo shaqada ka tagayna kulli de shaqo hayo wuxuu qabtay kulli kan dambara de waa waji hor loo cusub wixii cusub caalimka jecel
ismaaciil sida la wada ogyahay ra-iisul wasaarihii hore waa siyaasadda waxaa ugu horreysay markii oo mataqaanaa uu ra-iisul wasaare loo magacaabay kanna weli mataqaanaa hadda ka hor siyaasadda cid ku aragtay ma lahan marka ma u malaynaysaa inay isku mid noqon doonaan sidee bay kula tahay wallaahi waxay la tahay kolley ninkan dambe iyo ninkii hore kolley ninkan dambe aqoon ku filan waa leeyahay insha allah marka inuu isbeddel keeni doono ayaan aaminsanahay I believe okay ismaaciil waa mahadsantahay thank you بسم الله الرحمن الرحيم waxaa halkan nala jooga xaaji axmed nuur maxamed xiirey waxa uu ka mid yahay xaaji maxamed nuur bulshada Soomaaliyeed ku dhaqan magaalada Houston gaar ahaan weliba waxa uu yahay xaajiga dadka ugu horeeyay ee magaalada soo dega marka xaajiga waxa uu ka soo shaqeeyay dawladii hore ee kacaanka Soomaaliyeed marka waxaan ka wareysanaynaa ra'iisul wasaaraha cusub ee la soo magacaabay iyo wixii mataqaanaa ku saabsan ra'iisul wasaarihii hore mataqaanaa iscaazilay misal kalsooni laga laabtay marka xaaji ku soo dhawow SWS TV waxa weeye waan dhowahay waana mahadsan tahay marka xaaji sidee u aragtaa ra'iisul wasaaraha cusub ee la soo magacaabay بسم الله الرحمن الرحيم رئيس الوزراء أنا وأنا قانا وأنن ويا أرجع وأنن أقول لهدي أقول تو أي معركتي وحقبنا يسو أقول لكفلا ويا أنن سو شقي ويا أرجع نمالة دولة دي الصومالية وسو شقي وزارة حنانة ده حولها كبعدين بربركي كبعدين عن مغلي إنه ميلا بدن وعالم ككم إذا كسر شقيقي وتاسو مغلي وطاي marka waan ku soo dhaweynaynaa ra'iisul wasaaraha la magacaabay waanu gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa xilkiisana inuu Ilaahay u fududeeyo ugu duceynaynaa xaaji waxa kale oo weydiinayaa ra'iisul wasaarahan cusub ee la soo magacaabay ma u malaynaysaa inuu ka duwanaan doono ama uu ka shaqo badnaan doono ra'iisul wasaarihii hore ee shaqada ka tagay wallaahi waxa weeye taas waxay ku xidhan tahay isaga shakhsiyadiisa aragtida uu isaga tiis yay ku xidhan tahay hadba sida uu maaragtay maalinkii isniinta ahayd ayaa waxaa luuqadda Soomaaliyeed lagu daray Google Translate midaasi macnaheedu waxay tahay haddii aad doonayso inaad turjumtid luuqadda Soomaaliga luuqad kale inaad ku turjumtid aad doonaysid aaladaas ayaa ku fududeyn kartaa haddii aad luuqadda Soomaaliyeed doonayso inaad eray ku ogaatid eraygaasna luuqad kale uu yahay waxa uu ku sahli karaa Google Translate in eraygaas macnihiisa uu ku siiyo wararka naga soo gaaraya magaalada Louisville gobolka Kentucky ayaa waxa ay sheegayaan in gabar Soomaaliyeed ay isbuuciina soo dhaafay meel dukaan supermarket ay gashay kadibna ay ka qaadatay walxaha timaha lagu buufiyo ama loo yaqaano hair spray kadibna ay musqusha la gashay iyadoon weli aan lacagta bixinin halkaasi ay u isticmaashay si darooga ah gabadhan ayaa lagu magacaabaa Shukri waxaana la sheegayaa in weliba booliska ay baaritaan wadaan ayna soo xaqiijinin waxa ku khasbay inay gabadhan falkan ay ku dhacdo booliska ayaa waxa ay sheegeen kadib markii gabadha loogu galay suuli meesha ku yaalay ama musqul ayaa waxa meesha loogu tagay gabadhii oo qaarka kore u qaaban intaasi waxa ku dhan barnaamijkeennii maanta waxaan idinkaga tegaynaa intaan mar dambe hawada ku kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu